inaan bogsadaan ismoodahay bartii bogtay way bannaan tahay inaan bogsadaan ismoodahay markii bogtay way bannaan tahay nabadgelyo naxariis korkeena ahaato marka xigta dadku Soomaali hadii la yahay waa la badan yahay inta badan ma oran karto qofka la garanaya caanimadu iska jecelna laakiin inta badan dadkana lama jeclaan marka ani markan haddaan ku jariyo mas'uul walaalkay anigu aad ugu mahad celinaya marka xigta waxaan jeclahay halkan horta dhamaantiin in aad idin ku soo dhaweeyo waxaan aad iyo aad halkan uga rajeynayaa in maanta waxyaabo badan oo meel dhara oo guul aan filayo in ay ka gaaraan dhanka horumarka waxbarashada nolosha dhinac walba aynu wada arki doonaa hadii ay raali oo ka noqdo san kale waxa aad iigu muuqata da'yarteena maanta ama shacabkeena inay yihiin dad aad u firfircoon oo aqoonta ama waxbarashada dhankeeda hadii la yiraahdo diyaar u ah waayo hadii la yiraahdo waxbaad kororsanaysaa qofka ka sii jeedo dareemaysaa inuu dib u socod yahay hadduu diyaar soo noqdana waxa weeyaan halka hore iga geysay wax badan aan kororsaday u dhigaysaa aan ka gudubno markan waxaan jeclahay inaan doodii u guda galno qof walba halkan fadhiya nasiib ayuu u yeelan doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo in su'aal uu weydiiyo looga jawaabo weliba arrimaha nolosha wax ku saabsan horumarinteeda dhanka waxbarashada shaqo la'aanta iyo waxyaabaha muhiimka ee nolosha aasaasiga u ah waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa in wax ku saabsan arrimo siyaasadeed ama qofka qoraaga waxyaabaha uu ka hadlayo wax ka duwan aad su'aal ahaan u weydiisan sababtoo ah maanta shaqo aanan lahayn haddii la weydiiyo aqoon uma leeyahay waayo kama jawaabi karo marka waxaan ka codsanayaa wixii muhiim ah oo arrimaha horumarinta nolosha ku saabsan in qabiilka ay weydiiyaan jawaab waafi ay ku qancaan iyo inta xikmadiisa la eg tahay ayaan annaguna ka faa'iideysan doonaa wuxuu xaq u leeyahay haddii ay dhacdo su'aal aan halkaa ku jirin ama siyaasad ku saabsan haddii la weydiiyo sida arrimaha amniga oo kale inuu ognaa dalkeena dhibaatooyin badan baa ka jira marka halkaa dawladda madaxdeeda ma fadhiyaan oo kuma oran karaan amnigu waa sidaas waxaan ka qaban karnaa balse qabiilka arrimaha ku saabsan horumarinta nolosha iyo ka faa'iideysigeeda ugu koobnaan doontaa haddii su'aal inta ka baxsan la weydiiyo wuxuu xaq u leeyahay inuu iska yiraahdo kama jawaabayo waayo waxaan lahayn lagama jawaabo mar kale soo dhawow ayaan leenahay qabiilka maxamed cali juuxa waxaan aad iyo aad u rajeynayaa in waxyaabaha ku saabsan aqoontiisa ee maanta bulshadiisa uga faa'iideyn karo halkan si toos ah uga faa'iideeyo aan siiyo qofka ugu horeeya ee jecel su'aal inuu weydiiyo midda ugu horeysa maxaa keenay kala qoqobnaanta dhalinyarada maanta haysata midda labaad maxaa loo waayey dad isku taxalloojiya dadka danyarta ah in la siiyo waxbarasho muhiim ah oo lacag la'aan ah maadaama aan aragnay waddanka u badan yahay ama jaamacada aad ama iskuuleeda lagu dhigto lacago fara badan maxaa loo heli waaye mid lacag la'aan lagu dhigto midda saddexaad maxaa keenay maanta in dhalinyarada shaqadoonka lagu lagu xujeeyo shahaadooyin heerka labaad ama digriga labaad ee jaamacadda sidaa warkaan noogu maqaalo aan ku aragnay haddana dadka marka ay shahaadooda ay geystaan ma la siiyo hoos baa la geliyaa waxaa la fiirinaa dadka badi hadda mudnaanta waddanka waa la joogna waa la socna waa mudnaanta waxaa la siinayaa dadka u badan qurbaha maxaa dadka waddanka u dhashteen oo waddankan ku nool oo dhib iyo dheer og yihiin maxay u heli waayeen shaqo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta midnimada cagsigeeda waa kala daadsanaan sidaas banaanba ummadda horta waxaa fiican marka ugu horeysa mid laba ayaa dhaanta labana saddex ayaa dhaanta saddexna afar ayaa dhaanta marka koowaad kala qoqobsanaanta waxaa keenay dhalinyarada intooda badan waxa ay eegaan danahooda khaaska ah haddii meesha dan guud ay jirto waa loo midoobi karaa wayna fududahay intaas dan guud lagu midoobo laakiinse iyadoo lagu dabaqayo danta khaaska ah ayaa dhalinyarada qaarkood ama intooda badanba waxay inta badan xooga saaraan arrimaha khaaska iyaga ay u leeyihiin
marka ugu horeysa inta badan dhalinyarada markaad mashruuc ula timaadid ama barnaamij aad ula timaadid ama hawl aad ula timaadid su-aasha ugu soo horeysa lagu weydiinaya waxay tahay maxaan ka dheefayaa dantii ugu jirta maxay tahay maskaxda mar haddii noocaasi ay u fekerayso caqliga noocaasi mar haddii uu shaqaynayo in la midooba iska daya xitaa laba qofood iskuma imaan karto qof ayaa isxilqaamaya meeshii laga niyadda loo dhisi lahaa ama la dhiirigelin lahaa waxaa lagu niyad jebinayaa hadal iyagoo haddana qasad ka ahaynin inay niyad jebiyaan laakiinse waxay ku dabaqayaan barnaamijka loola imaanayo midooda khaaska ah marka waxa inta badan dadka kala burburiya dadka kala fogeeya danta khaaska ah weeyaan danta khaaska ah dib ayaa loo dhigtaa midda guud ayaa marka hore loo soo jeestaa marka midda guud loo yimaado oo loo maxay to maartay loo howlgalo oo maxay to maartay gacanta lagu dhigo markaas waxaa imaanaysa baahidaada khaaska ah inay daboosho midda guud laakiinse aniga waxaan jecelnahay marka hore baahida khaaska ah inaan ka hormarino midda guud taas ayaa horta mar number 1 keenaysa kala qoqobnaanta sidoo kale waxaa keenaya waxaa ka mid ah jahliga qofka aqoontiisu hadday dhisan tahay calaa fikra maxay to maartay aqoonta kaliya wax ma soo ziyaadinayso haddaysan aqoonta khibrad barbar soconin marka waxa weeyaan khibraddu way ku yartahay dadka inta badan waxaad arkaysaa dad badan oo aqoonay raadinayaan laakiinse aqoonta haddaysan iyadana barbar soconin khibrad dhanka nolosha ah aqoontaasi maxay ahayd maartay waxay noqonaysaa fadhiid li'anno u fiirso shirkad kasta hay-ad kasta ama organisation kasta ama mu'asasad kasta markaad shaqo aad ka raadsanaysid shayga lagu weydiinayo ama priority-ga la siinayo waxa weeyaan khibraddana waa ka duwan tahay aqoonta jaamacad ayaa loo fariisanaya jaamacada laga soo baranaya ama iskuula laga soo baranaya laakiinse khibradda waxaa ku baraysa nolosha ku baraysa iyo meesha adiga aad ka shaqaysid taas su-aasha ugu horeysa waxaan uga baxayaa intaasaan uga baxayaa tan kale maxaa loo waaya waxbarasho lacag la-aana waa sax waxbarasho lacag la-aana maxay to maaragtay horta cidda waxbarashada lacag la-aanta bixisa waa dowladda ayaa baahida macalinka baahida dhismaha baahida maxay to logisticada ama yacni qalabka markaas laga isticmaalayo iskuulka maxay to maaragtay wax walba oo baahi dhinaca waxbarashada ah waxbarashadaas lacag la-aanta waxaa iska leh dowladda ayaa iska leh taasina waxaa inta badan laga soo qaado dalka ayaa lagu bixiyaa marka baahi maxay to waxbarashada lacag la-aanta dowladda ayaa u qaabilsan su-aashaas waxay ku fiican tahay dadka dowladda khuseeya oo arrintaana khusaysa in la weydiiyo ayay ku fiican tahay tan kale oo ah dhalinyarada shaqadoonka ah waxaa lagu xujeeyaa digriiga labaad horta waxaa fiican marka ugu horeysa inaan ogaano aayad qur-aan ayaa jirta oo dhahaysa wa an laysa lilinsaanu ilaa maa sacaa wa ana sacyahu sawfa yuraa marka waxa weeyaan qof kastoo bini aadan ah horta dadaalkiisa isaga ayaa iska leh waxa allaala wuxuu dadaal u sameeyana qofkaasi wuu helayaa taasi waa shaki la-aan laakiinse waxa weeyaan horta qofka ma dadaalaa meesha taalla inta badan waxaa la isku qaldaa maxay ahayd maaragtay dadaal la-aanta yacni waxaa la yidhahdaa qadar ayaa jirta qadartaasoo shaqo la-aan ah bal qofka haddii maanta oo habeenkii uu seexanayo 8 saac habeenkii ama 2 habeenkii haddii uu seexanayo subaxdiina 6 saac ama 12 duhurkii uu soo kacayo haddana meesha uu la soo fariisanayo shaqo la-aan ayaan ahay taas horta waxa weeyaan wax meesha ku jira ma aha qadarka waxaa la dhihi karaa qofka markuu dadaal nooc walba la yimaado oo meel kasta wax uu ka raadsado shaqo yacni meel albaab kasta uu garaaco mar allaale marka uu waayo shaqadiisa markaas ayaa wuxuu dhihi karaa qadar weeye waxaan laakiinse adigoo dadaalin inaad qadar aad tiraahdid wax meesha ku jira ma aha marka digriiga labaad waxa weeyaan horta meel allaale meeshii arsaaqadaada ay ka qoran tahay marka hore waad tegaysaa shaqan waad ka helaysaa taasa horta maxay to maartay number 1 ah tan soo xigta marka waxa weeyaan dadka qurba joogta waxa inta badan loo doorbidayo waxa weeyaan khibrad dhinaca nolosha ay leeyihiin baa la yiraahdaa inta badan qofka wadanka dhex joogay iyo qofka banaanka u baxayna isku mid maaha waxaan ula jeedaa yacni masirna kama wadi isku mid maaha waxaan ula jeedaa qofkan wadanka joogay iyo qofkan banaanka u baxay qofka banaanka u baxay wuxuu og yahay banaanka waxa yaala
laakiinse qofka gudaha jooga ma oga bannaanka waxa yaalla laakiin kan gudaha waxa yaalla iyo wax dibadda yaalla waa og yahay laakiinse taas micnaheeda ma aha in wax walboo la helo qofka maxay to dibadda ka yimid in la siiyo marka digriiga labaad waxa weeyaan haddii digrii labaad ayaa la doonayaa la yidhi qofku waa inuu u dadaalo siduu ku gaari lahaa digriiga labaad haddii digriiga koowaada lagaa rabaa haddii lagu yidhi waa inaad jaamacaddii tagtaa aad wax barataa si kastoo ay kugu qaadato markaasi laakiinse adiga haddaad tidhaahda digrii labaad ayaa lee weydiiyey aniga maxay to maaragtay shaqooyinkan aniga ma qaban kari mana qaban la okay digrii labaad muxuu kugu qaadanaya haddii u bad 2 sano kugu qaadanaya okay u dadaal jaamacad gal digriiga labaad qaado haddana fiiri adiga unbaa wax soo siyaadsanay laakiinse maxay to maaragtay shaqada maxaa loo waayey iyo digriiga labaad maxay to maaragtay ayaa la isku xujaynayaa horta laba isku imaanaysa maaha waddankeena dhibaatooyin badan ayaa ka jira dhibaatooyinkaasi ka jira waxaa ka mid ah nin ayaa shirkad furanaya ninka markuu shirkadda uu furto dhammaan wuxuu shaqaalaysiinayaa inta ehelkiisa ah xaqu uu leeyahay waa shirkadiis isagaa iskale laakiinse nidaamka shirkadda khaaska loo leeyahay ama mu'asasada khaaska loo leeyahay ma aha in lagu dabaqo midda caamka ah waa loo wada siman yahay midda caamka ah waa loo wada siman yahay maadaama loo wada siman yahay si isku si ah qof walba aqoontiisa iyo khibradiisa in lagu qaato laakiinse mushkiladda jirta meesha waxay tahay maxay to maarta qof ayaa maxay to maarta xil loo dhiibaya ama mas'uuliyad qabanaya inta ku xeeran ama inta ciddiisa ama inta asxaabtiisa maxay to maarta wasaata ahaan ku keentay ayaa shaqadii helaysa inta kalena bannaanka ayay taagan yihiin taasina maxay to waxyaabaha musuqmaasuq lagu sheegayo waddanka ka jira ayay horta ka mid tahay marka taasina halkaasaan uga baxaya waxaan jaaniska siinayaa inta kale dhalinyarada waddanka joogta lama oran karo ma qabtaan waayo madashan dhalinyarada keentay waa dhalinyarada waddanka joogta waa dhalinyaro dhibaatooyin badan usoo dhabar adeegtay oo wacyiga iyo dhibaatooyinka waddanka ka jira wax kusoo baratay maantana u taagan inay fikrado cusub keenaan waa uga mahadcelinayaa barnaamijkan oo kaafi adilkiiba oo waxaan ku talinahay in lasii ballaayo oo la gaadhsiiyo meelaha ka baxsan magaalada muqdisho iyo dalka dibadiisaba xafiisyada shaqada ama ha ahaadeen dawlad ama ha ahaadeen hay-adaha madax bannaan ama ha ahaadeen shirkadaha gaarka loo leeyahay dadka ka shaqeeya oo dhalinyarada oo aan oran karo inkastay Soomaali yihiin oo walaal yihiin laakiin inta badan dhalinyarada dadka aadka loo doorbido waa dadka qolka joogta oo baasaboorada dibadda awooda for example haddii dawladda aan isha ku qabano xukuumaddu waxay ka kooban tahay waa wada diaspora okay maxaan marka dhalinyarada dadka joogta aaway xuquuqdoodii goormay xaq u yeelanayaan inay ka mid noqdaan dadka dalka talada laga weydiiyo professorku wuxuu yidhi dadka dibadda ka yimaada way ka waay aragsan kuwa waddanka jooga anigoo aan fikirkiisa diiday laakiin anigu aragtideeda ma qabo oo waxaan is leeyahay inkastoo nolosha ka mid a dadka waddanka jooga baa ka waay aragsan kuwa dibadda ka yimid waayo wacyiga nolosha ayaa waxay bartay marxalado badan shaqa la-aanta waddanka ka jirta sidee looga bixi karaa marka anu xafiis tago oo aan awoodba u lahayn hadda wasaaradaha ama tago oo ay wada xidhan yihiin adogtii oo ilaa uu nin xildhibaana ama mas-uul oo kaxeeyo aan tegi karin oo aan wacyi oognahay xaqada inuu soo dhawaanaa muhiima moogta sidee ku heli karaa ama sidee looga bixi karaa shaqa la-aanta jirta inuuna xaqiiqda taabano marka waxaan kusoo koobayaa arrimahaas labadaas su-aalood shaqa la-aantan sidee looga bixi karaa ma la oran karaa ma loo garaabi karaa dhalinyarada tahriibso ma loo oran karaa xaq bay uleeyihin inay tahriibaan say usoo noqdaan basaboor dibadda usoo qaataan si xafiisa lagu magacaabo mise xalkada aad noo haysaa oo noo sheegaysaa warba joogtan xafiiso bataaganna maxaad naga leedahay adoo iga taalla assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu okay waad mahadsan tahay saaxib horta aan saxo hadalka macnaha waxaan u malaynayaa si maxay to maaragtay isfaham darro inay jirto maxay to aniga ma oran muxuu ahaay maaragtay dadka qurba joogta ah maxay to waa ka way aragsan yihiin kuwa waddanka jooga saas darteeda loogu xushaa macnaha waxaan ula jeedaa maxay to dad walba waxay leeyihiin halbeeg bay leeyihiin wax ay ku cabiraan marka aniga maxay to hadda waxaan ka hadlayo kaliya waa ra'yigayga waxaa laga yaabaa dadka shaqooyinka bixiyaan oo inay ra'yi kale inay horta leeyihiin laakiinse waxa weeyaan horta qof socday iyo qof fadhiya
يعني waxaan ula jeedaa qof banaanka baxay iyo qof gudaha ku jira horta maxay to maartay isku mid maaha waayo quraankiiba wuxuu dhahay siiru fil ardi fanzuru marka qofka mar alla u fiirsa hadda maanta hadii gurigaaga aad ku jirtid aad soo baxdid oo xaafad kale ama meel kale aad tagtid khibrad iyo waay aragnimo ku ziyaadaysa laakiin se hadii gurigaaga adiga aad dhex fadhidid waxa laga yaabaa inaadan helin khibradda banaanka maanta adiga aad ka soo heshay aniga qasdigayga horta taas ayay ahay ta kale oo ah maxay to maarta waa sax maxay to qofka markii shaqo uu u baahdo ilaa iyo xildhibaan uu soo maro ama nin kale oo mas'uul ah uu soo maro inuusan dawladda shaqo ka helaynin arrintaas waa wax jira oo caana oo haddana socda waa macruuf laakiinse taasi sidaan soo sheegay haday waxay ka mid tahay waxyaabaha horta musuqmaasuqa jira ee socda ayay ka mid tahay musuqmaasuq oo la dabar goynin horta cadaalad inay ka dhalato ama dadka ama social justice inay bulshada dhexdeeda cadaaladda bulshada horta inay timaado ama la dabaqo horta muddo ayay qaadanaysaa wax hadda maxay to maarta si fudud ku imaan kara horta ma aha horta ta kale oo ah xuquuqda dadka waddanka sax dadka waxay u dhabar adeegayaan waxbarashada waddanka gudihiisa ay ku baranayaan duruufooyin kala duwan ayaa haysta horta nin miyoo dhegeysta midaan ii sheegaya horta maxay ahayd maaragtay mid inaad maskaxdiina ka saartaan oo aad ka masaxdaan horta isku daya qofka bini aadamka haddii hal shay madaxiisa uu ku xiro waxay imaanaysaa yani inuusan naftiisa xataa horumar gaarin tusaale ahaan anigaan idin hortaagan maxay ahayd maaragtay anisa heer masteraan ahay waxbarashadayda waxaan ka bilaabay magaalada Marka oo aan ku dhashay dugsiga sare waxaan ku qaatay magaalada Boosaaso waan shaqaystay waan xariiftamay waan shaqeeyay maxay to maarteen hadaf ayaan lahaa hadafkaygana wuxuu ahaa anigoo 30 gaarin inaan PhD aan qaato ma gaarin laakiin wadadeeda waan ku socdaa dugsiga sare cid iga caawisay ma jirto cid iga bixisay ma jirto gelin waan shaqaysanayay gelin dugsiga sare markii aan dhameeyay kaalinta koowaad ayuu hadafkayga ahaa waayo kaalinta koowaad waxaa lagu bixinaya scholarship banaanka ah habeen iyo maalin ma aanan seexashadeedu way yareed jaaniskaasaan rabay inaan ka faa'iidaysto habeen iyo maalin waan dadaalayay form 1kii kaalinta koowaad aan galay laba kaalinta koowaad aan galay saddexaad kaalinta koowaad aan galay afraadna kaalinta koowaad aan galay scholarshipkan waan helay Suuriyan ka dhaxay ayaan ka soo qaatay 2005 ayaa degree koowaad aan soo qaatay Suuriyan ku soo qaatay kabacdi waan ka soo laabtay maxay ahayd maaragtay Soomaaliya dib ugu soo laabtay Soomaaliya way ahaan weyday markaas waxaan aaday Yemen ayaan aaday Yemen markaan tagay meeshan shaqo aan ka helay shaqadii ugu horeysay Soomaaliya shaqo waan ka waayay Yemen aan tagay shaqo aan ka helay meeshaas haddana maxay ahayd maaragtay high diploma oo journalism ayaan meesha aan ka bilaabay gelin wax baan baranayay gelina baan shaqaysanayay kabacdi waxa ii suurta gashay 2005 inaan ka baxo maxay ahayd maaragtay Yemen inaan tago maxay ahayd maaragtay Russia lacagtayda ku baxay aniga wax soo bartay waalid ima saacidin walaal ima saacidin hay'ad ima saacidin aniga iyo maxkartidayda iyo Allah subhanahu wa ta'ala wax walba ii fududeeyay ayaa waxaas oo dhan horta aniga aan ku gaaray okay muxuu ahaay maaragtay maanta aniga haddii aan isku xiri lahaa hebel maxay tahay hadduusan ahaan lahayn ama hebel hadduusan ahayn wax ma baranaysa haddaan isku xiro heblaaya haddaysan isaacidaynin oo garabkayga istaagaynin haddaan isku xiro oo maxay tahay wax walba haddii qof yaa akhi adiga la imo mubaadara initiativeness la imo adiga laga rabaa inaad maxay tahay maaragtay kartidaada la soo baxdido maxay tahay maaragtay aqligaaga ka shaqaysiiso albaab kasta aad garaacid adiga laga rabaa fur aqligaaga qalbigaaga fur aragtidaadana mid fog ha ahaato maxay ahayd maartay xilibaan ilaa aad soo martid meesha ka saar wax la yiraahdo impossible ma jirto impossible qudheeda ayaa waxay ku leedahay I am possible marka wax weeyaan maadaama maxay ahayd maartay impossible aysan jirin waxaad ogaataa inna allaha ala kulli shay'in qadir isku barnaamij garaytaa ku soco maxay ahayd maartay ala barakatillah ku soco aan u soo laabta marka maxay ahayd maartay shaqo la'aanta baahsan ee waddanka ka jirta waddankeena shaqo kama jirto waan ogsoonahay inta badan dhalinyarada waa baagabuunto yaan dhihin shaqo kama jirto shaqo way ka jirtaa laakiinse shaqooyinka waxaa la isku siiyaa waji garab
iyo maxay to maartay reer hebel iyo maxay to maartay reer qurbajoog iyo waxyaabahaas la isku siiya qurbajoogta idin sheegaya inta badan maxay to maartay wax ugu dhasho mar kale aan ku soo laabto nimayahow aniga waddanka intaanan ka tegin ka hor waxaan ahaa nin macangag ah madax adag أنا واحد بفهمين وحي يعني أنا قاعد أصل صحنا كنت بركان أبي شيء أنا قاعد أصل صحنا مركز صومالي أنا كبح بنانك أنا آدي وحيابه أنا من سنة أو إبر أي صباح زيرو إن أنتاجنا هي نساك وحالكي دديو محيط ومارتين كل الدماء وحالكي دديو كل الدول كل مذبح محيط ومارتين طبيعة كل الدول وكل محيط ومارتين كل سريس وكل هوسيسو waxyaabo badan oo markaas maxay ahayd oo marka noloshayda wax weyn ka bedelay marka taas kaliya ku anfici mayso marka haddii taasi aadan ku darin maxay ahayd oo marteen aqoonta qaasatan dhinaca nolosha haddaadan ku darin waxba ku hagaagi maayo alla muxuu quraankiisa noogu sheegay inna allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim okay adiga horta marka ugu horeysa isku day isbedel inaad la imaadid markaad isbedel aad la imaadid ayaad wax soo kordhin kartaa meeshii 90kii aad joogtay haddii 2000 aad joogtid meeshii 2000 aad joogtid 2015 haddii aad joogtid oo isla maxay tahay haddana isbedel adiga aad raadinaysid isbedelkaasi cumrigaaga ku dhamaanaya marka waxaa lagaa rabaa horta marka ugu horeysa maskaxdaada ka saar waxyaabaha negative thoughtska ku jira hebel u tag hebelaa shaqo ku siinaya haddaad aamintidna shaqadaasi weligaa heli maysid wallahi inaadan helaynin war meel allaal meeshii arsaaqadaada ay ka qoran tahay waa tagaysaa haddaadan aqoonin ciwaanka risqigaaga ayaa yaqaana ciwaankaaga isaga albaabka kuu soo gargaraacaya marka ugu horeysa adiga la imow dadaal la imow maxay ahayd marta fikradaha madowga ah fikradaha negative-ka ah aad xambaarsan tahay meel iska dhig isku barnaamijgareey waxaan inaad helaysid waxaan inaad gaaraysid tijaabooyin badan ayaan soo maray oo ah maxay ahayd marta wax baan u baahan يعني هدف عن سميستا وان جانا هدف كي إله وإيسخرا إله وإيسخرا مر والبا محي تاسوكو إيمانه يسا مركا تذلك هاجا مركي أديك محي طول مرتين أتكون درتيد أو محي طول مرتين ربي جاجا أتجمعها أتوتاجتيد وح الله اللي واحد أباهم تهي واد هيليسا وحدا هيلنا أديك ملهي إيه اسكو دالين لكن سويح عالم كان فوق قران وايد يصير شقادر وحي أباهم تهي تذلك أباهم تهي تهذي كله dhalinyarada way kala daadsan yihiin dhalinyarada haddii ay mid noqdaan ra-iisul wasaarahana fartay ku yani amar ku siinayaan madaxweynahana fartay amar ku siinayaan wax walbo ay u baahdaana way fushan karaan dhalinyarada haddii ay mid noqdaan lianno fiiri horta cilmiga maadiga iyo cilmiga diiniga horta inaad isku darsataan aad iyo aad ay u fiican tahay markuu ilaahay uu ku leeyahay fiiri wactasimuu بحبل الله جميعا هديد محيط ومالت مد أد وضع نقطان وحد اعتصامات هلسة عد إذن إلالسة ومحيط ومالت عدوغنا إذن كإلالسة إذن كهور استاكتا أيات هلسة لكن سشردق معوية جميعا مرك جميعا منهن marka maadaama jamiican aynaan lahaynin waa inaan isku daynaa oo aan dadaalnaa oo aan noqonnaa sidaan jamiican aan ku noqon lahayn oo maxay ahayd tomad wax allaali waxaan aan u baahan nahayna ama wax allaali waxay dhalinyarta ay u baahan yihiinna powerkooda inay ku helaan laakiinse haddii mid adiga aad tahay power ma lihid haddii aad midaysan tihiinna power ayaad leedihiin shaqooyinkan meelaha yaal yaalo oo wejiga laysku siinaayana cidda bedeli karta waa dhalinyarada cidda saan kusii fiirsan kartaa ama saan ku eegan kartana waa dhalinyarada intaasaan uga baxaya dhammaan waan salaamayaa kasoo qodlayaasha su-aashiina ugu gudbulaya maadaama waqti aan haysan waxaan ogsoonahay dadku markay shaqaayska yihiin inta badan waxaa la raadiyaa shaqooyinka sarsare high levelka yani qof ku qanacsan ma laha shaqo hoose dalkeena wuxuu u baahan yahay shaqooyinka hoose sida in dhulkii la beerto beerihii la fasho wax badan dadku ay soo saaraan يعني دكتور أنت يعني مقدر يا أو وحير وعن يعني كرة كسب بالعام سيدات تاسو وجود بكرنا ودت كانوا وجع على سكر مع يعني ليزك كسب بالعام شوي وما سبتي إن سؤال شاطرت وحويان صح دتك أنتوا ضبطان محيي تومارته وحي دون أيام شقوين كسر سريع وحاجة جرتا وراها عربية جرتا وده هيسا من طلب العلا
sahara layaan qofka horta meel sare doonaya waa inuu in badan horta soo daalaa adigoo soo daalin haddii adiga kow kor ah kasoo bilowdid taas horta wax soconaysa maaha sax maxay to maarta qofka waxa weeyaan hoos hadda fiire ilmaha markay iskuulka ay dhiganayaan yacni maxay to maarteen ilmaha garaadkooda marka loo eegayo fasalka koowaad ay kasoo bilaabaan labaad ay yimaadaan saddexaad ilaa iyo taas waxaa lala xiriiriyaa ilmaha garaadkooda iyo caqligooda laakiinse maxay to maarta haddana meesha waxaa ku jira xikmadda ku jirta waxay tahay waxaan hoos laga soo bilaabin korka ma hagaagsamaan qofkii doonaya inuu meel sare uu gaaro wuu gaari karaa waddada way furan tahay qofkii gaaraya laakiinse horta waxay ku xiran tahay meesha hoose inaad soo martid meesha sare waxay ku xiran tahay adkaysigaaga aad soo baratay oo aad ka soo baratay waxyaabaha hooseeya inaad beerahaaga aad falatid yacni shaqooyinka businesska yaryarkaa inaad soo martid ma jiraa qof maxay to marta businessman ah oo hal mar isagoo millionaire ah la arkay la qof walba salkuu ka soo bilaabaa marka qofka bini aadamku waa inuu salka ka soo bilaabaa asaaska waa inuu soo dhisaa si aad awood aad ugu yeelatid shaqada sare adoon salka soo marin oo shaqo sare aad doonaysid shaqadii sare haddii lagu dhiibo 2 maalmood haddaa wadid 3 aa wadid 4 aa wadid marka dambe istiqaaladaada dhiibanaysaa sababtoo ah ma wadi kartid yacni kartideeda ma lihid khibraddeeda ma lihid aqoonteeda laga yaaba inaad haysid laakiinse khibrad ayaa meesha loo baahan yahay hadda inta badan fiiri waxyaabaha qurba joogta inta badan loo dooranayo waxa weeyaan haddaan waan soo tilmaamay waa khibradda haddii maanta adiga aad ka soo shaqaysay maxay ahayd maaragtay waddanka yaa ka tagtay banaana wax ka soo bartay kenya shaqa aad ka heshay khibradaa ka soo qaadatay meel kalaad tagtay khibradaa ka soo qaadatay meel yani hay-ad caalamiya la soo shaqaysay oo banaanka ah khibrad ayaad heshay khibradahaagii way ziyaadeen way biireen c v-gaagaad ku dartay plus maxay to maaragtay aqoontaada iyo maxay to maaragtay iyo wixii adiga markaasi aad soo baratay c v-gaaga waa buuxa haddii c v-gaaga haddii lay hor keeno c v-gana uu buuxo marka waxaan doorbidayaa ninka khibradda leh aan doorbidayaa marka loo eego ninka aan khibradda lahaynin okay marka ninkaana waa soomaali ninkaana waa soomaali marka okay waxaan leeyahay kana waa qurba joog kana waa waxaysan yahay la aniga waxaan eegayaa maalan aniga ab shirkad iyo furanba shirkad aniga waxaan doonaya khibrad leh oo shaqada si fiican igu shaqeeyaan rabaa okay waxaan u eegayaa khibradahan fiirinaya khibradda marka aan fiiriyo maxay CV-gana uu buuxo qofkan maxay to maarteen waxa imaanaya imtixaana imaanaya CV wax ku qoran yahay maruma imtixaana imaanaya text exam imaanaya kabacdi waxa imaanaya oral exam imaanaya wixii marka haddii sidii aniga aan rabay haddii adiga aad noqotid waan ku shaqaalaysiinaya haddii waxa meesha ku qoran iyo waxa aan ka arkay aysan islahaynna raalli ahaan waan ku leeyahay marka waxa weeyaan inta badan waxa la doorbido hadday shirkado ay yihiin hadday mu'asasaad ay yihiin haddii wax kale ay yihiin markii hiring la samaynayo waxaa loo eegaa inta badan khibraddaa loo eegaa dadka khibradda leh saasi shaqo kuwa aan khibradda lahayna safka dambay soo gelayaan macnaha yani HR marka laga hadla waa taas weeyaan in aan wax badan inaga aan ka soo tagno si aan u helno xafiisyada maanta la joogo ama dadka rabaan inay ka wada shaqaystaan inagana maskaxdeena aan kaga dhadhacsiino in wax badan oo ah xafiiska inaan ugu xidhnaan lahayd xafiisyada dhibaato ka jira 7 bilood ka la qaadan la sheegay ku qanci doontaa oo meelna laakiin ka taga si waxyaabahan kale oo saadka aad ku samaysaan بدأت وفضل أنا مركا سأشيدا سألكي وعو شيء إن في عقد هاي إن لو برارو أبيك لو حسب بس صح مركا أرواني لو حسب بحشو أما أقول شيء هرماريو أما واد فيجا نسميه كو واد في وعو تذكرنا ما أنت فخر كبحو كلية داخل لا ينتهي كلية بدأ على الصوت ترى مثل كمان الموسكي لوكتو ما أقول كلامه public administration هذا المصاب بدرجة business administration أو كلام business administration وروا هم عقول إذا هذا كيس فايل وسكن عسل هاي هنا مركب قف كل صعوبة هاي هذا السوسي اللي بعده يوم مركب هنا مركب أكو برارو كل يده هم برنا يعني بدأ كده يعني نجنا نقول نروح علمي إذا نجنا نقول هم أو أكو شيء إنسان إنسان حالي نقوليه هذا أنا نسكو برارو جنو إن أواحد بو إن نجنا نبي أكو شيء إنسان كرو سأسنا مثلا واحد بدنا مركب كان حاجة سقط الرسول كبير. وما تطلع سقط الرسول كبير. مركب سبب كل تهيئات على كذا ما شرحات. إن ده كان دنيا الصومالي كان جيل كمان ويران كتر كمان تفهم
ay isaga tabtiri karaan xafiisyada dowladda shaqooyin kale ugu baraarugi karaan oo keliya waa mahadsantiin. okay aad iyo aad u mahadsan tahay. horta fiiri waa sax in culeyska laga qaado xafiisyada dowladda oo wax meesha ku jira sax, laakiinse waxaa ka horeysa first what do you want exactly. horta dhab ahaan horta qofka muxuu rabaa horta taasaaba su-aala. qofka wax waa iska tirtiri karaa, yacni barnaamij cusub waa isku shubi karaa, laakiinse horta qofka what does he want, muxuu rabaa. noloshaada wax adiga aad rabtid markaad ogaatid wax walba waxay ku noqonayaan basiiray ku noqonayaan, waxaaga adiga aad rabtid aad target ka dhiganaysaa. laakiinse haddii aadan ogeynin wax adiga aad rabtid, marna public administration aad galaysaa, marna business administration aad galaysaa, marna public health aad galaysaa, mar meelaad u boodaysaa. horta mushkiladda hadda maanta jirtana taas waa dadka haddana fiir dhalinyarada intooda badan waxa weeyaan muxuu ahaay maateena way duulduul badan yihiin. duulduulka waxa weeye waqtiguu kaa lumiyaa. hal shay matalan maxay tahay kuliyadda beeraha hadda haddii aan weydiiyo yaa dhigta haddii aan dhaho waxaa laga yaabaa hal ama laba inuu soo boodo, laakiin administration yaa dhigta haddii la dhaho in gacanta la wada taago ayaa suurtagal ah. marka waxa weeye maxay tahay marta haddii la doonayo arrintan in laga gudbo, horta marka ugu horeysa qofka ha ogaado horta wuxuu rabo ha isweydiiyo, kadibna maxay tahay maaragtay fikradiisaas uu helo mashruuc ha u bedelo, markuu mashruuc u bedelana fulin ha u bedelo, kasaa ha ku socdo, saana hadafkiisa qofka ha ku gaaro. xafiisyadan maxay tahay laga dawareeg horta adiga xafiis islaameed waa adiga aadaye maxaad maxay tahay isugu talageli weyday adiga ama maxaad iskugu programmeen weyday in xafiiskaaga adiga aad abuuratay loo soo shaqo tago, maxaad ugu fikiri la-dahay tahay intii aad xafiis islaameed aad aadaysid. bal adiga isku day hal abuur inaad la imaadid, adiga isku day haddii shaqa meel kale adiga aad ka weyday isku day shaqa adiga inaad abuuratid. marka adiga shaqa aad abuuratid adiga lagu soo shaqo tegaya, laakiinse adiga haddii maalin walba shaqa aad u raadsatid qof kale ama xafiis kale oo aadan ku baraarugin ama aadan ku talagelin in adiga shaqa aad abuuratid, meeshaad unbaa taagnaanaysaa. marka wax walba waxay ku xiran tahay qofka iyo meeshuu isdhigo ayay ku xiran tahay. sal allahu alay su-aasha koowaad waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed badanaa waxay ka cawdaan shaqa la-aan, iyagu laakiin isuma dayaan inay shaqa abuur samaystaan. see fakarka u baabi'in karnaa marka ee markasta shaqa la-aanta laga cabanayo laakiin shaqa u abuuran. su-aasha labaad waxaa weeyaan badanaa waxaa ognahay inaysan jirin maktabado badan oo aqoon laga korsado oo ku qoran luuqadeena af Soomaaliya. waxaa laga yaabaa jaamacadaha guud ahaan Soomaaliya ku yaalo luuqadaha international language waa ku dhigtaa, ama ha ahaato carabi ama ha ahaato ingiriisi. badanaa waxaa lagu dhigtaa ingiriisi Soomaaliya jaamacada looga soo baxaa ardayda soo baxaan. ardaygii markuu jaamacadii dhameeyo fikrkiisa wax ka baxsan ma yaqaano, markuu meel tago ma kororsan karo skills kale ama experience kale. hadduu iskaro distance ku diyaarso luuqadii carqalad ka isticmaalo ama ingiriisi ama ha ahaato carabi ha ahaato. so see ku heli karnaa maktabado badan oo lagu soo bandhigo bugaagteena iyagoo badanaa waa aragnaa sheekooyin maktabadaha marka iftiyo kale tagtid inta ugu badan waxaa yaala bugaag ingiriisiya iyo bugaag carabiya. bugaagta Soomaaliya siyaasad iyo waxyaabaha sheeko jecel u badan yihiin. u arki mayso kuwo ka hadlaayo ardaygu suu hadafkiisa ugu hore dhalin karaa, see loogu guulaysan karaa, sheekada loogu guulaysan karaa, halkaas waa ku liitaan. see markaa u heli karnaa bugaag ku qoran af Soomaali oo looga faa'iidayo oo cilmi xabaarsan oo haata experience waana aad iyo aad u mahadsan tahay. marka ugu horeysa horta barnaamijkan horta shaqa abuurka waa barnaamij inta badan horta maxay tahay maartayna soo laabta. horta dhalinyarada wax walba horta waxay ku xiran yihiin qofka. waa wax hadda aan sheegay horta qofka muxuu doonayaa, qofka dhalinyarada ah waxa uu rabo marka hore horta maxay tahay. hortaas waxa weeyaan qofka horta inuu isweydiiyo horta shaqa inaad abuuratid arrintaas Soomaa. okay maxay tahay shaqada aad doonaysid inaad abuuratid. okay inta badan haddana anaga mushkiladda na haysato waxa weeyaan mid ayaan u soconaa, mid ayaan u soconaa. mathalan maxay ahayd maaragtay anigu waxaan arkay 5 wiil waa in Moscow ay ahayd, waa 5 wiil. mid wuxuu ka soo jeedaa Uzbekistan, mid wuxuu ka soo jeedaa Azerbaijan, 3 waxay ka soo jeedaan Baku, yacni muxuu ahaay maaragtay ha marka waxay furteen maqaaxi lagu iibiyo fast food.
يعني cuntada fudud يعني safariga la yiraahdo jidka lagu sii cuno ama maxay tahay meesha lagu dhex cuno mid wuxuu yani waxay isu keeneen lacag soo urursato marka hore maxay tahay waxay u shaqeynayeen dawladda Raashiya maxay ka shaqeynayeen dhulkii xaaqi jireen waayo Raashiyaanku maxay tahay way ka faanaan in dhulka ay xaaqaan marka waxay ka keensadaan Uzbekistan iyo Azerbaijan iyo maxay tahay marteen iyo Almaty meelahaas ay ka keensadaan dadka maxay tahay dhulka u xaaqaaqa waxay go'aan ku gaareen 5 sano gudahooda inay shaqeeyaan ka bacdina inay meel furtaan waayo si fiican ay u yaqiineen cuntada sida loo sameeyo khaasatan fast food-ka maqaaxa ay ka furteen magaalada Moscow mid yar yahay way qurxsadeen way hagaagsadeen lacagtii ay soo ururiyeen ay wax ku qabsadeen meeshii 6 bilood markay u furneed customers badan ay yeesheen meeshii way balaariyeen waxay ka dhigeen maxay tomaatayna muxuu ahay mid caalami ay ka dhigeen oo maxay tomaatay ninkii maxay Norway ka imaanaya kii film ka imaanaya waa la isku soo sheegaa dadka dalxiisayaasha xataa isku soo meeshii waxay noqotay hada wiilashaas shanta ah waxay noqdeen milyaneero dadka maxay toona dawladda hoose xirnaan jireen 5 sano ay dhulka xaaqayeen mushaarka ay soo qaataanna maxay ka 130 ay cuni jireen 170 bangiga ku shubi jireen waa la sheekaystay ku xisaabtamin ila al-abad inaad ka shaqeynaysid laakiinse ila al-abad waxaad ka shaqeyn kartaa shaqada markaas adiga aad abuurato cidna bax ku dhihimayso cidna imo ku dhihimayso businesskaaga aad abuuratay waxaaga aad horumarsanaysaa xoogana aad saaraysaa adiga lagu soo shaqo tagaya takhayal imis qofooda u shaqo yaa motivate gareeyay cidna iyaga is motivate gareeyay yaa wax u qabtay iyaga qabtay imaada idinka wax abuurta saasa meel ugu gaaraya qof walba wadankiisa isaga dhista Yurub oo jeedaan maalin walba maxay tomateen xoogii iyo awoodii iyo kartidii la isku keenay wadankoodii way dhisteen annaga aqligeena iyo kartideena hal qalbi aan yeelano shaqo abuur aan ku dhaqaaqno malaayiin Soomaaliya ayaan shaqo u abuuri karnaa laakiinse waxa loo baahan yahay we can make a change adiga way qofka maxay tomaat isbedel keeni kara wadankan uu keeni kara intiina meesha joogtaan wax weyn aad qabataan hadii aqligeena mid aad ka dhigtaan qalbigeena mid aad ka dhigtaan hal wadana cagta aad saartaan taas la daabacay ayaa jirto oo maxay tan walba gurigiisa iskaga haysta ayaa jirto ama suuqyada iska kala daadsan yihiin ayaa jirto hadii la heli karo dad u istaagaya buugaagta soo ururinaya hal maktab isugu keenaya wax taas waxay dhiirigelinaysaa dadkii iyo qoraayada ay dhiirigelinaysaa maxay tahay aniga hadda tusaale ahaan 5 buug ayaan qoray 5 buug maxay tahay midna maktabad kama yaalo لأنه محيط ما قرشة عن قصة على أي واحد قرشة إدكس قرشة عن قصة على محيط مرتين سنة كان برتني سنة رشان توضح المرء إن محيط مرتين مجال أما محيط مرتين إني سوق يسوق كلامه تذكر محيط مرتين آية خستان خاصة واحد أنت بدل حوج أي سارة ين وحيابها محيط مرتين أي شيء يعني life development وأنا وحيابها أنت بدل أي مجتمعين أي أباهيين وياه لأنه hal kelmad maanta meel adiga aad ka akhrisatid ayaa waxa laga yaabaa change inay kugu sameeyso noloshaada oo dhan marka sababteed waxa weeyaan buugaagta maxay tahay jamcin ay u baahan yihiin buugaag ku yara Soomaaliya gudaheeda qoraayada Soomaaliyana ma yara maxay tahay buugaag badan ayaa la qoray buugaag badan ayaa taala laakiin waxay u baahan yihiin in la soo jamciyo meel la isugu keeno ay u baahan yihiin markaas wax badan ayaa laga kororsan karaa qoraayal kale ama kuwa hadda wadada ku soo jiraanna awood waxay u yeelanay dhiirigelin ay yeeshaan inay maxay tomaatay buugaag badan soo saaraan insha Allah waxay walaalka xiga ayaan jecelahay fursada aan siiyo talo su'aal bismillah aad ma xasan yahay waxa rabaa inaan tumada ku farmaayo waxaan hay baaga raiiska ugu kala diiwaan shaqadan socdaalka nolosha iyo xaalada caafimaad intaan ka kalmado waxa rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood su'aasha koowaad oo ah si ayaa dhalinyarada loo jeclaysiin karaa wadankooda si looga hortago tahriibka talabaadna waxa weeye waxay la xiriirtaa waqtiga shaqaaluka iyo la xiriirtaa markii la rabo bilaanka marka la hadlayo waxaa markasta shardi ah laba waxyaalood oo ah awood iyo xiritaan tusaale oo kale maanta waxaan rabaa inaan samaysto ganacsiga aan la yaabo inaan samaysto haddii ka waran aan baxaysaba kushir aan wax ku abuuro qof iyo caawiyana aan helin see ayaan abuuran karaa marka shaqadaas
awoodna malihi inaan shaqa abuur samaysado qofna hadda kale ah awoodi qofkii waxaa dhici kara inuu awoodi karo inuu shaqo awood samaysto laakiin uusan rabitaan uusan jirin maasha taa aan ka geeya waxaa rabaa inaan su-aasha weydiiyo ah sidee ayaa shaqa abuur loogu samayn karaa dhalinyarada aan waxba baran maanta waxaa laga hadlayay master iyo PhD iyo degree baa laga hadlayay laakiin kuwa waxba baran oo dadkala jooga aana ku shilin awoodin heli karin cid ka awoodsan aan heli karin sidee la taqada shaqo loogu awoodi karaa dhammaantood بسم الله horta su-aasha ugu horeysa oo ahayd sidee dadka ama dhalinyarada wadankooda lagu jeclaysiin karaa horta waa maxay wadan waa maxay wadan horta waxaa wadan ku ah dhulka waxa ka soo baxa waxaa wadan ku ah qalbiga hooyada marka wadanka wax weeyaan waa dhulka iyo waxa ka soo baxaya qalbiga hooyada marka qofka markii intaas uu ogaado dhulka adigaa lehson adigaa degan guri ayaa kugu yaala marka cid kastoo markaasi doonaysa inay kusoo xadgudubto naftaada qagdhigaysa waxa dhulka uu ku siiyo waa wax adiga aad cuntid waxa adiga aad cuntid haddii lagugu soo xadgudbo oo meel shishe lagaaga meel shishe lagaaga soo duulo oo lagugu yimaadana iyadana nafta ayaad qagdhigaysaa ta saddexaad oo ah qalbiga hooyada qalbiga hooyada cid aan jeclayn maa jirto maxaa loo yiri maxay dhulkii hooyo maxaa loo dhiibaa dhulkii aabbo marka waxa weeyaan hooyadu saddex xaqay leedahay soo ma xaqa koowaad muxuu yahay calooshay kuga dhacday xaqa labaad muxuu yahay way ku foolatay foosha xanuunka foosha waxa uu dhigmaa 40 laf oo jirkaaga ka mid ah mid iyadoo loo wajiga hal laf bash haddii lagaa siiyo xanuunkeeda mu adkaysan kartaa mid labaad mid saddexaad ilaa 40 laga gaaro 40 lafood oo jirkaaga laga jibiyo xanuunkeeda iyo xanuunka foosha isku mid ah way ku foolatay xaqa saddexaad ay kugu leedahay waa maxay way ku nuujisay soo ma mid afraada soo raaca oo ah way kusoo korisay laakiinse korid kaalintaas waxaa soo gelaya aabbahaa soo gelaya marka halkaasuu ka soo gelaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay sooma saddexdaas xaq umma thumma abuuga ahaa soo maha saddexda xaq waa saddexdaas uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay marka saas darteed horta qofka haddiiba intaasi uusan jeclayn uu ama jeclaan waayo wadani ma aha wadaniga waa kaa intaasi inta qofka jecel ayaa wadani lagu tilmaamaa ee wadaninimada ma aha calan lasoo xirto ama soomaaliya toosoo la qaado wadanimadu taasi maaha wadanimada waxa waa inaad jeclaatid dhulkaaga inaad jeclaatid dhulka waxa uu ku siiyo inaad jeclaatid qalbiga hooyada markaas ayaad wadani aad tahay wadaniga dhabtahna waa kaa dadkana waxaa loo jeclaysiin karaa wadankooda horta maxay ahayd maarteen nicmada goormee la ogaada ma taqaana markay ku dhaafto ay kaa tagto markaasaa qiimeheed aad ogaanaysaa laakiin intay kula joogto ma ogaan kartid aniga maalin maalmaha ka mid ah oo waddankayga aan ka tegey anigoo ka maqan 2 sano intaan meel fadhiistan keligay iska ooyey sababta oo ah waddankaan tegay lagama soo dhaweynin waddankaygii markaan joogayna cid joo idii jirta ma jirto marka maxay ahayd maarto markaad waddankaaga adiga aad ka baxdid horta waxaad ogaanaysaa qiimaha waddanka uu leeyahay si ka baxsan sida hadda adiga aad u ogtahay waddankan cidda qarabaysa yaa wiye ma shisheeyaa mise waa Soomaali annaga wey annaga waa annaga oo maskax kalena la soo saaray ama annaga oo maskaxdeena wadano oo waddankeena maxay ahayd maarta qas iyo qalanqal aan ku wadno cid kale yeelan waxba u sheeganin waddankeena annaga qaribayna nin shisheeye intuu yimaado waddada ma wax ku dilaa kuma dilo nin shisheeye intuu yimaado maxay ahayd maarta waddada dhexdeeda kugula dagaalamaya ma kugula dagaalamayo laakiinse maxay ahayd maarta waxa weeyaan waxa annaga naqasaya waa maskax banaanka ah weeyaan haddii annaga maskaxdeena aan quudino aan kobcino oo aan maxay ahayd maarta wacyigeena kor u qaadno aqoonteena kor aan u qaadno waddankan annaga iska leh annagaana difaacan karna cidna maxay ahayd maarta aayad kama qaadan karto
marka darteed waxa weeyaan maxay waddanka annaga is jeclaysiin karna inuu qof kale noo yimaado inaan jeclaysiino waddankaaga ku jeclaysiinaya no taas ma dhacayso mana dhici doonto waddankaaga adigaa iskale dhulkaaga adigaa iskale wuxuu ku siiyey adigaa iskale hooyadaana adigay ku dhashay marka taas waa taa tan kale maxay ahayd marka fiiri aniga horta qaamuuskayga kuma jiro waxaan lama awoodo mar horaan ka saaray waa la awoodaa waa la awoodaa awood way jirtaa way taallaa adiga maanta waxaad doonaysaa inaad business aad bilowdid shilin lacagana ma haysatid waa inaad lacag raadisaa soo ma xaggee ka raadisaa marka waa inaad shaqaysaa xaggee shaqo ka helaysaa shaqadasa maxay tahay shaqada wax allaala waxay doonta ha ahaato waa qabahe lacag soo ka heli maysid waa qabahe waxay doonta ha noqoto waa qabahe hadda waxyar kahor maxaa ka sheekeeyey dhulkay xaaqi jireen mushaharkoodii 100% ay ka cuni jireen 70 meel ay dhigi jireen wax lacag ay haysteen ma iskoob ay haysteen iskoobo isbisiin ay isbisiin alayda soo ma ku dhulka xaaqa ya marka waxa weeyaan maxay to maartay waxaan ma awoodo shilin lacag ma haysto cid saacidiisa ma jirto waxaan lama awoodo qaamuuskiina ka saara waa la awoodo qofka ayay ku xiran tahay iyo sida rabitaankiisa uu yahay rabitaankaaga mid dhab ah haduu yahay waxaad rabto waa gaari kartaa laakiinse hadduu rabitaankaaga mid jilicsan uu yahay ama rabitaan adag meesha hadduusan jirin ama xishood kugu jiro ama baqdin kugu jirto ama waxyaabo kale kugu jiraan bartaada unbaa taagnaanaysaa waxaad qabsanaysa ilaha awoorta ma jirto waxaan lama awoodo qaamuuskiina ka saara ama santi waa dunyada wuxuu ku talaabsaday qofka bini'aadamka markuu fikrada ay fikradiisa ogaanay xataa hadduusan awoodin lacagta maadaama nolosha Soomaaliya inta badan lacag ma hayno waalidiintan sidoo kale waa qofka hadduu fikrad hadda aan hayo aan la tago shirkadaha ugu weyn dalka Soomaaliya waxaa macquul ah fikrad inay iga qaataan aysan wax faa'iido ama wax shaqo ay u sheegayeen kadib waxay kadibna ay fikradeeda ay ku dhaqaaqaan iga shaqada ku abuuran hadday tan soconayso waa qofka bini'aadamku wax badan oo ku fikiraa inuu keeno fikrad cusub dalka ku soconayo mid labaad su-aasha kale aan qabo inaan ku weydiiyo maxaa sababa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aqoon ah inay tahriibaan waddankooda su-aasha saddexaadna waxa ay tahay sideen ugu hortagnaa in shaqada wejigiisa ku siiyo iyo garab waa waxaa ka jira Soomaaliya qofka aad si kasta uu aqoon u leeyahay in lagu siiyo shaqada garab ama si kale xitaa waxaad arkaysaa qof kale lagu keenaya qofkaaniti markaad waxaad fahansiiso booskaaga lagu bedelayaa adigoo ah qof qabiir oo inta badan shaqada meesha ola taan ku bilaabo maxay tahay saaxiibkay sida uu ka dhawaajiyey fikradaha la iska xado waa sax way jirtaa taas fikradaha waa la iska xadaa waxaan soo xusuustay horta intaan taas gelin waxaan ku xusuusinayaa horta maxay tahay maartay fikradda la iska xadayo waa wax jira laakiinse qofka haddii daki uu yahay ama qof fariid ah uu yahay maxay tahay fikradiisa uu ilaashan karaa tusaaleyan ku siinayaa qisadaan aan ku sheegay waan ku soo koobaya adigana kala dhex bixi doonaa hadda hore waxaa jirtay gabar ayaa maamul ahayd iskuulay maamula ka ahayd marka maamulkii haysay waa imaadaa xafiiskeeda imaadaa shaaheedii iska cabtaa qaxwaheedii iska cabtaa waa iska laabataa hawsha waxaa u qabta mid maxay ahayd oo maartay gacan yaro u ah hawshiisay saas ay u socotay marka waxay iska dhigi jirtay iyadii maxay ahayd oo maartay wax walba inay kala hagto maalmaha ka mid ah ayaa waxaa kormeer guud ah yimid marka iskuulkii marka waxaa la yiri maxay ahayd kormeeraan soo socda marka allaala wixii report ah hala diyaariyo reportkii maxay ahayd marka secretaryadii iyo kii gacan yaraha ahaa iyo maxay ahayd gabar kale oo maaliyadda u qaabilsaneed iyo mid xisaabaadka u qaabilsanaa maxay ahayd kulligood waa la wada fariistay kormeerkii ay yimi maamulihii meeshii joogtay afartii meesha la yimi kormeerayaashii waxay weydiiyeen haya wax qabadkiina rabnaa inaan ogaano marka reportkii waa lasoo wada qoray waa lasoo wada diyaariyey maxay ahayd maartay waxaa lasoo hordhigay maamulihii marka maamulihii kormeerayaashii la hadlayaan marka maamulihii hadlayaan markaasana nimankan waxay sameeyeen maxay ahayd maartay waxay ku heshiiyeen haddii su-aal la iska weydiiyo inaan maxay ahayd maartay aan loo jawaabin maamulaha uu ka jawaabo mar allaale markii su-aashii ugu horeysa la weydiiyey horta taqriirkii waa kana waa warbixintii waa diyaarsan tahay waa tan gacantay ka saartay taqriirkii meesha la dhigay waa la fiiriyey su-aasha koowaad la weydiiyey maxay
يعني سؤال كواد تقرير كوسابسن هذا لو يدي ما كواحد يكجوا سؤال شان محيطي سؤال شيء لو يدي ما كياد واحد سوقيسي أصحاب هذا إني كساعدان إني أشرحان مش يعني وي والله قبح شب يا لولي markaas maxay tahay marka waxay ku jawaabtay garan weey su'aal kale la weydiiyay way ka jawaabay saddexaad way ka jawaabay marka waxaan ka soo wadaa marka fikradii maxay tahay marka waxay rabtay inay ku socoto fikradda dadkan inay ku socoto ay rabtay marka fikradii waxa iyagana go'aan waxay ku gaareen in fikradii maxay tahay marka fikradoodii ay ilaashadaan qayb kamid ahna iyadii in la siiyo marka darteed kormeerayaashii ay ku hor fashilantay maamul maxay tahay marka muddo ka bacdi xilkii waxa loo magacaabay gacan yarihii iyada meesha tan waa maxay tahay marka waa mid dan guud weeyaan laakiin mid khaaska ku soo hartay waxa weeyaan marka ugu horeysa fikrad aad gudbinaysid horta adduunku waxa way fikradaha lacag lagu kala qaataa waa la kala iibsadaa sax laakiin anaga adduunka shay 20 sano ka dhacsanahay taasna xisaabta inaan ku darsano oo ku qasbanay li'anno dadka shirkadaha haysta dad bisil ma aha haddii ay bisil yihiinna kuwa ceyrina iska dhigaan marka mushkilad jirta taasi ah waxa weeyaan meeshan dadka inay waafi ahaadaan oo dadka maxay daacadnimo kula dhaqmaan oo maxay ahayd maarteen qofba qofka kale inuu nabadgeliyo ama maxay ahayd maar shakhsiyadiisa ha noqoto ama fikradiisa ha noqoto ama wixii isaga xaq u leeyahay ha noqoto haddii dadka aysan nabadgelin qofka fikradiisa oo qofka fikradiisa lagu xadgudbayo meesha waxaa imaanaya xadgudub ayaa imaanaya iyagana waxay ku noqonaysaa markaas fikradaada laga xaday darteeda oo hadhow lagu shaqaysanayo oo abaalmarinteedii ama maxay tahay qiimaheedii lagu siinina iyaga waxay ku noqonaysaa wax illegal ah marka darteeda waxa weeye haddii fikrad aad diibaysid xataa waxay ku fiican tahay in maxay tahay maarta aad kala goosatid oo dhammaan aadan wada dhiibin nus aad haysatid nusna iyaga aad siisid marka labada nus isku xiraadaan marka nuskan la'aantiisa ma soconayo nuskan la'aantiisa ma soconayo sheekada inay noqoto ayaa fiican taas uu gudbaya tan kale oo ah dadka tahriibaya iyaga oo aqoon leh horta fiiriya ma aan sheegaya jaahilnimadu ma aha qof aan waxna akhrin waxna qorin ma aha jaahilnimadu waxay tahay qof weelkiisa buuxo misna macluumaad khaldan ka buuxo kaasoo jaahilka dhabta ah waa ka لأنه نكال واحد ما قرأ واحد ما آخر يسوما عذر دار وله نينا واحد أكيد سا إنه أقويها أنا هاي وكل هاي أم وأقويها كتوه ميسا أقوانات كتوه ميسا مركز هذا أقوان تيسنا محيط وما تقابس صحة وما استعمالية نكال أقوان تلهم أنت إنه تهريب وقرأ محاكو كلفة أيه وحاول لقي يابا إنه كلفته محيط وما تماشى استك العكس وشقيسه رأني شيء جيا دتك يوروب وهالتها جيا فكرة ديالها إني سينا يا يوروب عن تكني واحد هو سوق يعني أنا وجد نكسو وده كان ديب وصل لعمله يوروب حاجرتنين أقوى يهانا يوروب اسمه كينا يعني أنت بدر هو نمبر كو قفك يوروب جوجا دتك يوروب جوجا أنت ولا بدن وشغال نظافة أم حمالي أم تكسيلة تكسيلة حمالي من سوق لا مركز هدرت هذا حويان waad baqashaana u malaynaya markii qof Yurub joogo maxay tahay la hadlo lacag u baahanahay oo kanaan u baahanahay markii lacag la weydiiyo cawaadka waa ka soo horeeya adig waa ka cawaad badan yahay inta badan xaqiiqi jirto waan filayaa maxaa keenaya marka taasi qofka Yurub joogo waxa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo $2,000 horta $1,000 waxa ka qaadanaya kirada guriga mar haddii sharci lagu siiyo isdabar way sheekadu $2,000 ku shaqeysa kun horta waxa ka qaadanaya kirada guriga $500 waxay ku baxaysaa korontada guriga biyaha guriga gaaska guriga canshuurta guriga nadaafada guriga $500 saasay ku go'aysaa maxaa soo haraya $500 soo haraysa $500 maca maxay tomaarteen ma $300 $400 adiga biilanaya $100 ku soo haraya ma reeraad usoo diraysaa ma saaxiibaad usoo diraysaa ma ehel baad usoo diraysaa ma bangi baad dhiganaysaa maxaad ku samaynaysaa marka waxaa laga yaabaa bish intaysan dhammaan inuusan waxba haysaninba Yurub uu joogaa Yurub wax weyn waxa ka dhigaya waa idaacadaha waa warbaahinta weeyaan waxaa la soo sawirayaa meelaha ugu quruxda badan la soo sawirayaa meelaha ugu quruxda badan ee sawir lagu soo galaya Facebook la soo dhigaa social media la soo dhigaya okay dadkan okay quruxda marka
dadka qaarkood yurub waxay u tagaan yurub uu joogaa ha lagu dhaho laakiin adiga adduunkan waa lagu keenay maxaa lagu keenay inaad wax ka qabsatid inaad waqtiga aad ku lumisid naftaada khatar gelisid maaha laba meelooda loo tahriibaa sacuudigana waa loo tahriibaa yurubna waa loo tahriibaa okay sacuudiga tahriibkiisa waa halis aniga og maxay to maartay yaman maxay to maartay saxafiyaan ka ahaa wax walbana wax ka dhacay dhan waa la soo waxaa kuu soo haray maxay to maaragtay ii sheegeen yurub halkaan laga baxaya suudaan la tagaya waa la kala baxaya marka qaarna waxay aadayaan masar qaarna waxay aadayaan suudaan muxuu ahaa libiya masar way adag tahay marka libiya waxaa joogta qolooyin mafia ah libiyaanku ma ah laakiin waa qolooyin mafia qolooyinka maafiyada ah maxay to maartay in badan magafa la yiraahdo soo ma okay marka dad badan waad maqasheen oo maleynaya lacag soo dir la yiro dadkiina waa la haystaa soo ma horta maafiyadaas ku dhigta marka inta la qabsado oo lacag la weydiisto way yar tahay laakiinse inta kale oo si kale loo isticmaalo ayaa ka badan haddana waxaad maqashaa soo maaha badda ayaa dooni ku degtay inta badan doonyaha ma degaani waa la dejiyaa marka la dejiyo konton markay saaran yihiin 20 markii la badbaadiyo waxaa la dhahayaa 30 waa la waayay meedkoodii waa la waayay ma la waayay lama waayin meedkooda baddana ma laqin markabkii dejiyey doonidaasi ay la socdeen 20na badday u daynayaan 30na way badbaadinayaan meelay ku xareysanayaan spare parts laga dhigaya xubnooda la isticmaalaya micnaha maafiyada ma naxdo imisa liina badda laqdayo meedkoodii waa la waayay raggoodii waa la waayay maxaa keenaya taas waxaa soo dhan maxaa keenaya 20 ay bad maxay tamaarteena 20 meedkooda la helaya inta kalena waa la waayay lagu leeyahay marka xagee aad marka ma daa laqday badda markay laqdo meedka banaanka iska keenta sooma okay meed mala maxay tamaartay nool laguma hayo xagee aaday marka meeshan adduunkan mafia ka shaqeysa Norway iyo Finland waxaa xuduud la leh Russia carabta intooda badan meeshay ka galaan Norway iyo Finland Moscow ka baxaan saasi ku galaan xuduuda way ka sahlan tahay baa ayaa looga soo sheekay markay soo baxayeen sidoo kale qolooyin mafia xuduudkaasi fadhida waxaa laga yaabaa boqolkiiba 2 inay badbaado 98 gacanta mafiyada inay ku dhacaan maxay daarahan dhaadheer oo quruxda badan maxaa lagu dhisay intee ka keenay lacagahaas oo dhan war nin milyaneer ah ayaa maxay kilida ka xun tahay ninkaas milyaneerka kilo ku munaasibeysa lagu hayaa maxay to maartay intaas oo $1,000 iska bixi waa milyaneer oo lacagta waa kala haya qaada lacagtaada si baashaan inaan nolol doonay waxa idin sheegay ma waxa aniga aan wax xaqiiqo ah waa la og yahay marka waxa weeye qofka aqoonyahanka ah oo wax bartay oo tahriibaya oo maxay to maartay haddana maxay to maartay nasiibka ha u hiiliyo ama nasiibkiisan u hiilanin haddana haddii meesha uu tago aqoontiisa ma ku shaqeysanayo nin Soomaali ah aqoonyahan ah oo aqoontiisa Yurub ku shaqeysanaya waxa laga yaabaa 10 kunba hal inuu ku jiro inta kale yaa waxa waa taksiila ama waa xamaali caadi ah ama waa shaqaale nadaafadeed saas wax lagu shaqo ama ceer uu qaataa waa intaas weeyaan inta meesha ugu hayo marka darteed waxa weeyaan qofka aqoonyahanka tahriibaya malaha qofkaas waxa weeye macluumaadkii jaamacadda ama macluumaadkii jaamacadda laga soo siiyay meelaha kale laga soo siiyay si fiican uma gaarin waa nin aqoonyahan ah ma tahriibayo okay maxay tamaartayna shaqooyinka garweyshanka iyo kuwa maxay tamaartay la isku bedelo iyo waxyaabo noocaas oo kale qof lagu keenay tababar booska lagu bedelaya tiiri horta qofka arsaaqada ka baqa nolol malaha qofkaas man istaahil inuu maxay tama noloshiisa u sii wato qofkan hadii lagu keenay tababar lagu yiri Soomaa wax bara lagu yiri Soomaa laba mid adiga kula jirtaa marka keen waan tababar inaad dhahdid iyo ma tababar laakiin arsaaqadaada inaad ka baqdo meesha laga ceerinayo arsaaqad darteed inaad u baqdid qofkii arsaaqada ka baqa qof Jarmaliyaan arsaaqad way qoran tahay umrigan waa xadidan yahay taas wata iskaashiga dhalinyarada iyagu maxay toomarto waxay imaanaysaa markii la isku caloofiyo yahay la isku kalsoon yahay dan guud dadka wada dhaxaysana meesha ay taalo marka jiilka sidee ayay maxay toomartay wax soo saar ay u yeelan karaan taas waxay ku xiran tahay maxay toomartay qofka insaanka wax markuu qabsanayo wax uu qabsanayo isaga ayay ku xiran tahay haddii maxay ahayd toomartay laakiinse waxaan u sheegay dadka kale oo Soomaaliyeed iyagana jiilkan wax qabsanaya ama qofkan wax qabsanaya in garbaha laga galo ee maaha garbaha in laga rifo
waxaan filayaa maqribkiya loo taagan marka aas kusoo gabagabaynayo waa joojinayna insha allah. inaan bogsadaan ismoodahay bartii bogtay way bannaan tahay inaan bogsadaan ismoodahay markii bogtay way bannaan tahay